haddaba waxaan soo qaadanaynaa buug aad u caan ah oo la yiraahdo The First 20 Hours. buugga runtii waxaa qoray Josh Kaufman. buuggaasi wuxuu ka sheekaynayaa ama uu sheegayaa inaad 20 saacadood oo kaliya aad xirfadda aad rabto aad ku baran karto. dawada xirfad inaad barataa waa muhiim. haddaad arday jaamacadeed tahay, haddaad dugsi dhiganayso, haddaad tahay qof kale oo ganacsiya, maanta xirfad ayaa shaqaynaysa. aqoontii guud iyo theory-gi waa la iskala baxay. waa itusoo itaabsiba caalamku maanta maraya. markastood xirfad yeelatana waxa kor u kacaya magacaagii iyo shaqadaadii iyo maamuuskaagaba kor buu kacaya. haddaba buuggan runtii wuxuu ku jiraa buugaga ugu fiican ee runtii laga qoray fiilkan ayuu ku jiraa. waxa uu sheegayaa qoraaga buugga wuxuu ku sheegayaa 10 qaacido oo haddii aad raacdo aad xirfad kasta ku baran karto. waliba muddada ku baranaysa waa imisa waa 20 saacadood oo kaliya. daawada waxaa laga yaabaa markan xirfad soo hadal qaadno iyo inaad wax barato oo xirfad isdhisto. waxaa laga yaabaa inaad tirado wax badan baan ka fakiraan xirfad yeesho oo iskal cusub aan samaysto. laakiin maxaa ka hortaagan? waxa ka hortaaganba waxaanad garan xirfadaad maanta u baahan tahay. xirfadihii baa kugu batay. markaas waxa ilaa hadda aan ku kala soconayn xirfadda kugu muhiimsan ay tahay inaad ku bilowdo imika. waxa kala dhici karta intaad xirfad bilowday iskal cusub intaad bilowday ayaa dhexda markaad marayso aad aragtay wax badan inaanay ku faa'iideyn. taasi waxay keentay inaad niyad jabto. haddaba daawada xirfad inaad barataa waa muhiim. kitaabkana wuxuu kuu sheegayaa 10 qodob oo haddii aad raacdo xirfad kasta aad ku baran karto. waliba muddada aad ku baranaysa xirfadaasi ay noqonaysaa xirfad aad ku fiican tahay noqonaysaana ay 20 saacadood tahay. 10 arrimood guda gal. qodobka koowaad ee buuggan sheegaya koow wuxuu ku leeyahay xirfad aad jeceshahay waa inaad xadidaa. xirfad ay naftaadu ka hesho ay naftaadu jeceshahay waa inaad ku bilowdaa marka ugu horeysa. haddaad tirada intaasoo xirfadood baan baranaya xirfadda aad jeceshahay iyo ta aanad jeclanba aanay ku kala cadayn xirfadda ma baranaysid. koow wuxuu ku leeyahay xirfad aad jeceshahay oo naftaadu ka helayso ay u dul qaadan karto oo isoo bari karto muddada ay soconayso ku bilow. qodobka labaad uu sheegaya wax weyn qoraaga buug leeyahay waa inaad isna aad qaadato waxa weeyaan waa inaad hal xirfad ku bilowda. haddaad tira 3 xirfadood baan isbarbar wadaya oo 3 aan rabaa inaan ku fiicnaado suurtagal ma aha. wuxuu leeyahay focuska waa inaad saartaa hal xirfad. xirfadda markaad ka gaadho ee aad 20 saacadood aad wado waxa cadaanaysa in xirfadaasi aad wax ka baratay aad ku fiicnaatay baa imanaysa. waliba isagu wuxuu leeyahay xirfadda marka aad 20 saacadood aad wado wuxuu isagu leeyahay xirfadda waad ku fiicnaanaysaa. manaha wuxuu iska sheegtay practically isagu waa uu tijaabiyay 20 saacadood xirfadaad awoodda ku saartaa inaad ku fiicnaanayso. qodobka saddexaad uu sheegaya waxa weeyaan wuxuu kale xirfad markaad baranayso waa inaad isweydiisaa xirfadan heerkeema ka gaaraya. halkeebaad rabtaa inaad ka gaadho? ma waxaad rabtaa inaad mustawaad gaaraysaa ama mustawa aad u sareeya ama mid dhexdhexaada? bal halkaad rabto inaad ka gaadho waa inaad xadidaa. qodobka afraad ee aadka muhiimku sheegay waxa weeyaan wuxuu leeyahay xirfad markaad baranayso xirfaddu way ballaaran tahay. halkii xirfad xataa way ballaaran tahay. waa inaad jarjartaad yaryaraysaa. xirfadda kolba qayb ku bilow buu leeyahay. oo haddaad marka Photoshopka aad baranayso kala qaybta ugu horeysa sida loo furo Photoshopka, sida faylskiisa loo isticmaalo, sida sawirka loo soo dejiyo, sida loo qurxiyo qayb u kala sameeyba kulli. oo haddaad xirfadii isku wada duubto waxa imanaysa hadhow wixii inaad marka dhamayso ogaato inaad ku fiicnayn. qodobka shanaad uu sheegaya waxa uu qodob aad u muhiim. wuxuu leeyahay haddaad xirfad baranayso waa inaad diyaarisaa xirfadaasi maxay kaaga baahan tahay. isweydii xirfadani waxay kaaga baahan tahay koow agabkee u baahnayd ku sameeyay practicalka waanaad heshaa. haddaad tiraado waxaan rabaa inaan editing iyo sida wax loo jarjaro videos kala isku hagaajiyo inaan barto oo ka waranba aanad la soo dejisan programadii lagu sameyn karaayay deema baranaysid. wanaad programka la soo dejisa oo aad diyaarsataa. marka qodobkan wuxuu ku leeyahay waa inaad diyaarsataa xirfadda wax alla waxay kaaga baahan tahay. waxay kaaga baahan tahay agab bay kaaga baahan tahay. waxay kaaga baahan tahay dadkii ku tababari lahaa lafdigoodii waxaasuna diyaar ku yihiin. shanta qodob markaad dhamayso iyo qodob lixaad sheegaya. qodobka laftigiisa waa critical oo muxuu ku leeyahay war markaad xirfad aad baranayso waxa lagaaga baahan yahay bay'adii deegaanka ku habboonaa samee. waxaad rabtaa maanta inaad Photoshopka aad barato. waad soo fadhiistay maxaa xafiiskaagii ama qolkaagii. bal ka waran haddii Facebook ku furan yahay oo halkan ay ciyaalku ka qaylinayaan halkan ay hees kaaga daarantay ma samayn kartaa waa maya. wuxuu ku leeyahay environment-iga deegaanku ha noqdo mid kugu caawinaya waxaan inaad meel ka gaadho. focusku waa inuu noqdaa waxaan aad baranayso. waxa kaloo dhan meesha waad ka saarta. marka deegaan ku habboon oo ku caawinaya waa inuu noqdaa deegaankan aad ku sameynayso xirfadan aad ku baranayso. haddii aanu deegaankuba kugu caawinayn oo wax badan oo kolba tushushku geliya ay meeshii yaalaan oo kolba maxay wax ka soo dhexgalayaan xirfadii sidii rabto baran mayso. qodobka toddobaad ee daawada waxa weeyaan waa inaad waqti u samaysaa. waxaan aad baranayso xirfadda haddaad tarin xirfad baan baranaya beritoole oo kadib subaxa markaa soo toosto aad subaxa ku bilowdo maalinta labada aad garanay waqtiga haddana aad xirfadda dhiganayso ka soconayso. xirfadan aad ugu talagashay waqti xadid maalin kasta waqti xadidan saacad xadidan oo fadhiisanayso iyo meeshaad ku sameynayso inta waa xadidnaada. laakiin samala awal yahuha iyo adigoon timekaagii aan xadidin ka socon mayso. marka qodobkan wuxuu ku leeyahay buugani waa inaad xadidaa waqtiga aad ugu talagashay inaad runtii barato xirfadan aad barato. qodobka runtii sideedaad wuxuu ku leeyahay xirfadan aad baranayso waa inaad runtii samaysataa qaab kuu sheegaya kolba heerka aad marayso. haddii aad wado una onad feedback helin
helin war maxaa kaa qaldan maxaa kaa saxsan haddaanad helin dee hadhow marka dhamayso iskala gareemsa halkaad marayso tan markaa maxay kaaga baahan tahay dee haddii tusaale kale imika aad codingka baranayso programming baranayso feedbacka computerka ku siinayo markaad wixii dib u qorto dee error buu ku soo saaray waxa ay qaldan yihiin haddii aan system noocaas aan isticmaalayn waa inaad heshaa markaa qof tababaraya oo feedbacka ku siinaya oo markaad heer gaaro kooranaya heer imika aad baad u fiicanta waxa waad saxday waxaasi way kaa qaldan yihiin kolba markaa waa inaad jirtaa cid feedback ku siinaysa marka wuxuu ku leeyahay runtii qodobka 8 waa inaad yeelataa wax feedback ku siiya oo kolba halkaad marayso kugu soo warceliyo ku yiraahdaa imika meel halkaasaad maraysaa halkaa uga gudub intaa waad saxday intaad waad qaladay taasi waxay keensanaysaa inaad ogaato horumarkaaga ogaato qodobka 9 wuxuu ku leeyahay qodob aad u muhiim ah laga yaabaa inayna ku baraarugin laakiin waa muhiim qodobka wuxuu ku leeyahay waqtiga aad xirfadda baranayso haddii aad saacad ugu talagashay maalintii inaad xirfad barato saacad yar wuxuu ku leeyahay marka ugu horeysa 20 minutes ku bilow sababtu waa maxaa daba masalada hal muhiimku waa tan nafta haddaad ku talado maalin kasta saacadan meel fadhiisanaya aqbali mayso maalin hadday aqbasho maalin labaad aqbali mayso maalin saddexaad hadday aqbasho ta afraad aqbali mayso sababtoo waqtigan fara badan ee saacada naftu way caajis bay dareemaysaa marka maxaa lagu leeyahay nafta waa la sabaaye ku bilow waqti yar oo kooban waxaa tiraa 20 minute oo kaliya meesha fadhiya 20 minute oo kaliya ayaan xirfadan yar baranay marka markay 20 minute dhamayso koob shaah iska cab iska nafis kadibna 20 kale ku dar hadda saacad ugu talagashay 20 kaas markuu dhamaado raaxayso naso hadan 20 kale ku dar marka naftii wax la rabaa kolba in yar inay runtii wuxuu qaadato oo kolba iyadoo raaxaysanaysa ay xirfadiina samayso qodobka 10aad ee buug ku soo khatimaya ee uu ku leeyahay haddii aad rabto xirfad inaad 20 saacadood ku barato waa daruuri waa qodob runtii asleeyahay aad muhiim waana qodobka inta badan dadka ka hor istaaga inay shaqada qabtaan waa maxay wuxuu ku leeyahay iska ilow inaad istiraado xirfadan waxaad ku noqotaa perfect yani qofka ugu fiican inaad ku noqoto taa naftaada hawshay haddii aad istiraado xirfadan halka ugu fiican ka istaag oo waxaad noqotaa qofka ugu wanaagsan oo qalad asamayneen naftaadu xirfadan ma qabanayso sababtoo markasta waxay arkaysaa error inay ku jirto qalad ay ku jirto wax ka dhiman yihiin marka ma dhimaynaysid marka wuxuu leeyahay marka ugu horeysaba at least naftaada ku qanci haddii aad mustawa gaadho fiican 20 ka saacadood ina fuuya laakiin nafta haddaad tiraado kol hadaanan gaadhin halkii ugu fiicnay xirfadaas ma sii wadi karo wuxuu ku leeyahay arrintaasi waxay keenaysaa inaad xirfada barato oo aad 20 ka saacadood dhamayso ay ka joojinaysaa sababtoo xirfadii marka aad bilowdo marka 5 cisho aad wado haddii naftaadu tiradan iyo 5 cisho aad waday 5 baa ku harsan malaha sidii la rabay xirfadan u baran maysid naftaada intaas marka ku soo dhacdo naftaadu xirfada ma sii wadayso way ka caajisaysaa laakiin naftaada haddaad tiraahdo war waxaan u baahanahay oo kaliya xirfadan inaan wax ka barto oo 20 ka saacadood galiyo qoraaga buug wuxuu ku tagayaa 20 ka saacadood markay dhamaadaan waxa imanaya inaad ku fiicnaato xirfadaas kadib waxa ku soo baxaya xirfada inaad sii wado khatar ku sii noqoto professional ku sii noqoto yeena tirada inta aniga heegu joogto waa inaan ku shaqaysan karo anna wax ku qabsan karo marka runtii waa qodob muhiim ah sababtu waxay tahay maanta xirfadaha soo ay xirfad soo qaad hadda maanta soo qaado xirfadahan aad dhalinyarto isticmaalaan ka soo qaado photoshop ka soo qaad photoshop ko kaliya hadda 20 saacadood geliso yani 20 cisho maalin ba saacad aad geliso ka war photoshop soo baranaysa si fiican ma baranaysa photoshop maalinta aad dhamayso oo ku shaqaysan karto laga yaabaa dad badan inay yiraahdaan iyo 20 saacad meelaha waa yiri ma yara rasuulullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa saxaabadiisa kamida ayaa uu ka dalbado ku amray inuu luqadda yahuuda barto waa xadiis tirmidhi baa warinay bal saxaabiga zayd bin thabit weeye imsa filaysa inuu luqadda yahuuda ku bartay 15 cisho ku bartay sida xadiisku sheegay sidoo zayd sheegay wuxuu yiri 15 cisho ku bartay luqadda yahuud marka yani xadiiskaas laftigiisu wuxuu cadeynaya muddo kooban inaad wax aad rabto aad ku baran karto buugan ninkan qorayna isagoo practically wuxuu tijaabiyo indhihiisa ku arkay oo isagu isku dabaqay ayuu soo bandhigay uu leeyahay war 20 saacadood oo kaliya haddii aad xirfad aad awood saarto inaad xirfad barato skill aad barato skillkaas wuxuu doonaha haadee hadda 20 saacadood siiso oo 10 ka qodob uu sheegay aad raacdo wuxuu kula xirfada aad baranaysaa